بركات كلي ما نسوي نجوري أو دردارن بيرجلين وأنا يواحد بلي هراء وأنا دوسو تشيدين وأنا اللي قدام بين دونا بيرجلين تنوع وحيابها كأم مهم برشدة لقول دقاتين كرو برشدة هرمر لقول جالسين كرو اللي يرى هنكودا لقول توسين كرويان باني مهم نقول هاي أنا مركز تيس بيرجلينه waxaan toos ugu geli doonaa maasadaydan oo markaas iyaduna ka qayb ah dhiirigelinta bismillah magacii qahaarka qafuurur rahiimka weeye qowlkayga hortii asiibay tixdii qalin ugu dambeysay qoraalkiyo maasadayda aan qeexo ujeedadeeda iyo qabto oo dhageysta qaraar dacadtii ku caani marbay qayb dhabaqa leedo sidii malab lagu qiyaasaa waxaan uga qaata leeyahay qorshaha nolosheed sidaasa haddaad qayb adag dareento inaad dulba quus istaagto qaraarka habbooni ma ahe tusqaayaha guul dambaysa haddii nolosha marka wejiga adag uu ka hor yimaado aad markiiba isdhiibto de waxa weeyaan run ahaantii qof adag maad noqonin weeyaan marka waxaa loo baahan yahay in weji kasta oo noloshu ay kugu soo waajahdo aad u dul qaadato dalcad kasta iyo kaabad kasta oo adag in aad ka bixi karto oo aad ku dhiirin karto sidii aad hankaaga u gaadhsiin lahayd meel sare oo himiladaada aad u gaadhi lahayd qaraarka habbooni ma ahe tusqaayaha guul dambaysa wixii qalad iyo sax fiiri qalbiga rajo aad ku haysay misana qumanood ogsoontay cagtiyaa ka qaliraadka inaad qimadiyo figteeda qarkuun ugu hayso goorba qalbiga iyo sii kaskaaga imikuun baad u dhowdahay halkii aad gaadhi imikuun baad hankaaga u dhowdahay imikuun bay guuli kugu dhowdahay haddii aad sidaa tiraahdo waxa ogaala inaanad ka niyad jabinin ee rajadaada aad toos u gaadhayso qalbika ha u rogin kaskaaga hankiyo ficilkii qudhaada intood hamigii ka qaado qorshii himilada hallaane waxaa la idhahdaa himilada waxaa lagu gaadhaa hambalaas hami baa lagu gaadhaa himilada haddii aad ahaan leedahay oo laakiin si aan hamigii iyo dadaalkii iyo ficilkii aan raacinin inaad himiladaada gaadho way kugu adkaanaysa qabkii isla weynidaada qodinka udub ha uga daynin qiirada kuwa dayaxa jooga dartood nafta ha u qabiyeenin intaad quursato midaada toodana qiimaha siinin kaga qalooday qasiyada laga dhageystay dartii qatana dharaaro u dhisi ku waayay gaajo wax dhacday in odayba wuxuu ahaa iska dadkan go'aanka adag ku hayo dadana subax saxaafada midaba quraac inta habsantay wuxuu weligii wax saamay mas'uul waxa lagu yaqaan caadi dhaqan u leeyahay wax saamay mas'uul guul markaasaan ka qornaa sheekh oo haa taayga qoran buuraantii ku dhaqaaji doorkii bay midoo sidii la guuy midayadii habsan dadana wuxuu wallahi wad gaajoonaysi haddii aad iska yaraysato dadkii hadhow tolaada ka qoray waa doona oo balay ninkii hebeladiisa ka noqday dabeetana dartii ayaa uu naftiisii ninkaasi markaasi uu magac u gaajisay naftiisii uu ku waayay iyadoo dhowr jeer oo kalena uu saas ku qadayo saas ay ku dhacay haddaba waxa ninkaasi markuu saas ku waayay waxa jira dadkeena qaar noocaas oo sida isku leeyihiin hebel baa ka wax sheegi doona iyo heblaaya ka wax sheegi doonta waxyaabo naftiisu ay qabsan lahayd ka afsaamay dadkana qaarkii sidaas waxay qabsan leeyihiin naftiisu cid iyo qolo ka wax sheegta qadarintooda uga fogaaday qof weeyaan adimadiisii qool iyo dabar lagu adkeeyay hankiyo qanaacad weyne haddaad ku qanacdo dadka iska dhis iyo dadka wax qoran doona waa shaqadii ka soo horbaxday iyo markii shaqada soo wajahday baad qabsan weydo horumarka taasi ma ahayn gaari hadaadka inaad u roorto lugtiyo ha u jeedin qof tubtii qumaraynaha seegin qayliyo buuq faan hamoodin intaad faashiyo quraarad midiyo seef qaado waaba qaadiga aan la horkeenin in badan oo dhalinyarada ka mid ah dhalinyarada weliba markaas soo kacay aan isku darna qaarkood ayaaba waxay faan moodaan ninka hebel waa dictatoriye ninka hebel iyo qacantiisa ma soo laabato oo faashka markuu qaado ka ugu kala jeexaawan dadkana waxa jira qaar markaas dadka dhageystayaal baa jiro iska raacaan dadana dhalinyaro yar oo badani waxay isayaan ninka u jeeriga u sheeg waa ninka hebel iyo walaal iska sina noqdo weeyaan qaar badan ma inta dadka qaadan miska fadhiya iska miisay arbaxan ninka isku sameeyaan iyo naadiga weeyaan oo saasan isla ficiltana waxaad ku qaraafo beesheed oo qeexiba karin qalbiga haysaga nugleyn qiiraad iska mala awaasho naftiga qeyrkeeda siinin qaadkiyo habbanay sigaarka qiimin nololeed haseegin imika mid kasta oo kamid ah dhalinyarada balwadari haddii aad weydiiso tiraahdo niyo maxaa kugu wacanaya aad u qaysh sabab uu ku sheegay mid bila sabab kuma sheegay
shaqalaanta oo badnaat maalmaha ka mid ah waxa dhacday in yar oo aad u firfircoon oo dadka inta badan fikristayaasha fikrada laga faa'iido inta badan murtida badan leh ayaa waxa dhacday silba ninkan weydii waxa kalifay waan aad u diiday dabeetana su'aashii markaan weydiiyay waxa lagu jawaabay niyo dadka ilaahay baan isleeyahay tigaameen heshiis hadan qaad kan iska daayay magaalada markaan qalabka qof ma isqabsanin markaan nabadgeliyo ahaan ayaa baaqana kalaaba ma maxaada ugu jira aniga baan xabo si nabadgeliyo ma dadka ka marayso qaar badan talo ilaahay saaxiib kaga fariisiyo inta nabadgeliyo rabshadahay qiimiin nololeed buugiyo qalinkii ha tuurin lulkiyo quruxii jirkaaga xoog iyo quwadii habeenin qasaaraha ha u bareerin dadkii ha ka qixin dalkaaga ishiyo qoraasigeeda qurbaha dhalaalka yaala qunyaraha isaga riyaaq qurbaha dhalaalka yaala qunyaraha isaga riyaaq sidii ariha u qamaamin qoomaan dhaqan kula wadaagin af iyo midab ka qalaada diintana inuu qaato diiday qabyaaladna kugu duleeya inaad qolqolkiisa gaadho yaxaasa ku quudintaada dadiraado maanta halkaas baan doonayaa in aan gaadho wadamada horumarka gaadhay ee shaqadu taallo ayaan maanta doonayaa inaad gaadho runtii maad asiibin horumarka iyo horeynta saa laguma gaadho waa dad gaala ah oo aan diin kula haysan waa dad aan af idin kulminin dhaqan idin kulminin midab idin kulminin oo si kasta aan u ogolayn inaad horumar gaadho dadkaasi haddaad ku sheegto kuwii horumarka gaadhay waxaa tahay markaasi qof beenaalabaad qof iska hadlaybaad وإلى أن القرآن يقول أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم يسويه مكاسي نيكا قال كايا كمسلم كايا مكاسا سنة وسنين ولا يقول شيء يقف مكاسي توصل سعنية يقف قد يدرس سعنية مثلا قرومها دنيا تشوغا waxay qaarada ku faanto baryada iyo quudisteeda qayb aad leedahay ka yeer baryada iyo quudisteeda qayb aad leedahay ka yeer yaad markaasi inta taariikhda tirada cayr baan qornaanaya dhowr sanadood halkaas aan ka quudanaya waaga saddexiga wax uga soo diraya waxa dhaanta adigoo ku fikira sidoo horumarka ku gaadhay mid la mid ah adiguna samee sidoo horumarka ku gaadhay oo adigu markaasi aad samaysato hami oo adigu markaasi aad himro yeelato oo wadankaaga aad u dhisto sidii wadankiisa u dhisay quruumaha dunida jooga waxay qaarada ku faanto baryada iyo quudisteeda qayb aad leedahay ka yeelo wuxuu qayb ka awooday inaad adna qaban karayso qalbiga iyo si kaskaaga adduunka gaadho waan isku diidaa inaad gaadho waa meel islaahay dhulkaaga iyo qiimihiisa qumbiyo idilkeed qudaarta xoolaha qanamkiyo dabjoogta duurjoogta iyo qaybaheeda shidaalka iyo qudashadiisa macdanta aan cidina qoorin intuba qalibay dhulkaaga quruurux sidii ku yeeni baahida ku qaba dhaaf dalkaaga ku baahan dalkaaga ka uga baahan maanta fikir waxa la sheegaa mararka qaar Mareykanka horumarada waxay ku gaadheen wadamada Yurub ama reer galbeedka waxa ka mid ah in fikradii dhalinyaradeedii taariiftay qof kasta adduunka fikir ku soo kordhiya ay ururiyaan kadibna qof kasta fikirkiisa lagu qaato dabadeetana waxa la sheegaa qaar ka mid ah in fikradeedii ku horumareen innaguna wadankeennii baynu kala yaacayna aynu ka qabeynayna intuba qalibay dhulkaaga quruurux sidii ku yini baahida ku qabaha dhaaf. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inta sanad